madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta lagu wadaa inay gaaraan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool safar lagu tilmaamay mid taariikhi oo xambaarsan fariimo qaran oo muhiim ah safarkan ayaa noqonaya kii ugu sarreeyay hoggaanka dalka uu ku yimaado magaalada Laascaanood muddo dheer kadib isbedeladii siyaasadeed iyo amni ee dalka lagu sameeyay ujeedka booqashadan ayaa ah xoojinta midnimada dalka adkeynta doorka dawladda dhexe iyo dhaqanka shacabka Sool Sanaag iyo Cayn inta ay joogaan Laascaanood madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa la filayay ka qayb galaan munaasabad heer qaran isla markaana ay kulmo la yeeshaan hoggaanka SS Khaatuma odayaasha dhaqanka waxgaradka haweenka iyo dhalinyarada kulamadaasi diiradda lagu saari doono nabadeynta dhismaha hay'adaha maamulka horumarinta adeegyada bulshada iyo sidii gobolka si buuxda ugu beeri lahaayeen hanaanka federaalka amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamo kala duwan ee ammaanka ay wadaan diyaargarow ballaaran sidoo kale shacabka guud ee magaalada Laascaanood ayaa muujinaya soo dhaweyn diiran mudane Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha dowladda Qodob Bari madaxweynuhu waa ka dadkii ay si caadi ah u wada salaamayaan oo dabcan maanta reer Laascaanood guud ahaanba meel kasto ay joogaan waa isugu soo baxeen marna waxaan idin cabiri doonaa dareenka dadweynaha laakiin hadda madaxweynaha ayaan idin daawasiinaynaa waa ka madaxweynihii dadkiisii ku dhex jiro oo dabcan aad toos u daawanaysaan ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna u jeedaan markiisii oo dabcan maanta madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii labadaba aysan kala harin marka dareenka dadka rabnaa waayahay soo dhawow toos baa laga daawanaya warbaahinta qaranka Soomaaliyeed TV qaranka magacaaga marka hore ku bilow magacaaga marka hore magacaaga nimcaas jooba leeyahay ayay ka waran bal dareenkaaga saaka ilaa waxa u taagneed ma cabiri karo maanta aad iyo